sidoo kale ka hadlay xaaladda dhabta ah iyo garoonku aadka u jecel yahay inuu ku ciyaaro si lamida waxa uu ka hadlay Lionel Messi aynu ku horeyno isagoo ka hadlaya Lionel Messi kaasoo ah mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee kubadda cagta Soomaaliya xidiga qadka dhexe reer Belgium iyo kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa qarsan kari waayay sida uu jecel yahay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi wargeyska Mundo Deportivo ee ka soo baxa gudaha dalka Spain ayaa waxa uu daabacay wareysi uu bixiyay Eden Hazard isagoo ka hadlaya waxyaabo badan oo kubadda cagta isagoo uu kugu lug leeyahay ma dhihi karno waxa jirta laba ciyaaryahan ee ugu fiican taariikhda kubadda cagta kaliya waxa jira hal ciyaaryahan waana Lionel Messi intaas kadib hadalkaas uu yiri laacibkan cajiibka ah ayaa waxa dib loo xasuusiyay kulankii ay Barcelona kula soo ciyaareen tartanka Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay wuxuuna kaga jawaab celiyay hadallo dhowr oo tilmaamaya in si walba oo ay Barcelona u dadaashay ay haysato Lionel Messi taasina ay ka dhigtay inay guusha hesho waxa uu yiri ma ahayn xasuusteedii ugu fiicneed sanadkii taga 2018 laakiin waan ku faraxsanahay inaan wajahay Lionel Messi iyo kooxda reer Catalonia laakiin waxay sheekada ku dhamaatay ugu dambeyn si niyad jab ah sababtoo ah Blues waxay macsalaameysay tartanka UEFA Champions League waxaan haystaa 3 caruur ah waxay joogaan Stamford Bridge kan ugu weyn waxa uu taageero u yahay Lionel Messi laakiin dhammaanteen waan jecelnahay waana wada taageernaa isaga waxaan doonayay inaan arko isaga oo u ciyaaraya kooxdiisa kulan walba sababtoo ah isagu waa ciyaaryahan khaas ah sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Lionel Messi ayaa xalay waxa uu sameeyay taariikh cajiib ah marka laga hadlo in uu goolal u dhaliyay kooxdiisa Barcelona Lionel Messi ayaa horyaalka La Liga dalka Spain ka dhigay taariikh aysan cidi hore u dhigin kadib goolkii uu xalay ka dhaliyay kooxda Eibar ciyaar ku dhamaatay 3 gool iyo eber oo ay ku adkaadeen kooxda uu hogaamiyo Ernesto Valverde ee Barcelona Suarez ayaa laba dhaliyay halka goolka kalena uu dhaliyay kabtanka xulka qaranka dalka Argentina iyo kooxda Barcelona Lionel Andres Messi taasoo micno gaar ah u sameysay isaga ahaantiisa si lamid ah jamaahiirta isaga taageeraha khaaska u ah waxa uu noqday laacibkii ugu horeeyay abid taariikhda ee 400 oo gool ka dhaliya horyaalka La Liga Primera División kaasoo laga ciyaaro gudaha dalka Spain waana heerka ugu sareeya laakiin Lionel Messi wali waxa ka sareeya Cristiano Ronaldo oo wuxuu noqday laacibkii labaad ee gaaraya 400 oo gool taariikhda 5 horyaal ee ugu waaweyn Yurub oo Ronaldo ayaa kaga horeeya tiro lagu tilmaami karo ilaa iyo 9 gool maadaama kulamadii uu soo ciyaaray Cristiano Ronaldo horyaalada kala duwan uu dhaliyay 409 gool waana 3 koox oo kala Real Madrid si lamid ah Manchester United iyo waliba Juventus iyo kooxdiisii hore oo noqonaysa tan afraad laakiin kulamada waxa yar Lionel Messi oo 63 kulan ayuu ka ciyaar yahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo isagu sameeyay taariikh aysan cidi hore u dhigan marka laga hadlo in Spain sidaas laga sameeyo dhanka kalena ciyaaryahanka lagu magacaabo